Assalaamu calaykum. YouTube-ka wuxuu bilaabay horumarin uu ku sameynayo YouTube Studio-ga, kaasoo ah meesha aad ka maamuli kartid muuqaalada aad ku soo gudbisay bartaada YouTube-ka. Haddaba berihii la soo dhaafay, YouTube-ka wuxuu ku soo daray YouTube Studio-ga waxa loo yaqaano customization. Muuqaalkeena maanta waxaan isla fiirin doonaa waa maxay customization, sideena loo isticmaalaa customization-ka. Daawasho wanaagsan. Magacaygu waa Maxamed Maxamuud, channelkani waa Caaqil Tech. Kanaalkani waxaan ku soo gudbinaa muuqaalo ku saabsan tiknoolajiyada sida isticmaalida apps-ka iyo sawir editing-ka. Fadlan haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channelka subscribe saar. Gambaleelkana furo si aysan ku dhaafin muuqaaladeen xiga. Mahadsanid. Aan u sii gudagalna marka muuqaalkeena. Su'aasheena ugu horeysay waxayna dhahaysay waa maxay customization. Customization-ku waa qaabeynta aad qaabeynaysid YouTube homepage-kaaga. Sida shaashada idinkaaga muuqato haddeertaani waxaad aragtaan YouTube homepage-kayga. Waxaana ka maqan waxyaabo fara badan oo aad ku soo dari kartid, kaasoo ka dhigayso marka channelkaaga mid ah professional. Haddaba waxaan isla fiirin doonaa marka sidoo hadda u muuqdo iyo markaan customization-ka ku sameeyo sidoo u ekaan doono. Aan hore u sii gudagalna marka si aad u sameysid marka customization ama aad u tagtid customization tab-ka waxaad mari kartaa marka laba qaabood. Qaabka koowaad waxaad taabanaysaa bottom-kan oo shaashada idinkaaga muuqdo oo ku qoran customize channel, ama waxaad kaloo sameyn kartaa inaad aadid profile picture-kaaga kadibna aad ka dooratid YouTube Studio. Kadib wuxuu ku keenayaa marka dashboard-kan ama shaashadan. Waxaad tagtaa meesha oo menu-ga kugu soo bandhigayo. Waad aragtaan halkani waxaa ku qoran customization. Wuxuu ka hooseeyaa marka monetization. Haddaad taabatid kadib wuxuu ku soo bandhigayaa qaybtaani. Waxaan hadda inta ka aragnaa meel ay ku qoran tahay layout iyo branding iyo basic information oo info u taalo. Marka intaasiba waxaan isku dayeynaa in aan wax ka badalno. Waan arki doonaa marka sidoo u muuqan doono marka channel homepage-keena. Aan ku hormarna marka layout-ka waxa aad ka bedeshid waxay badanaa xooga saarayaan ama ay ka soo muuqdaan qeybaha muuqaalada. Qaabkay u muuqan lahaayeen muuqaaladaada ayuu xooga saaraa marka layout-ka. Marka layout-ka wuxuu leeyahay laba qeybood oo kala ah video spotlight iyo featured section. Labada qeyb waan idin tusayaa sida loogu bedelo marka. Aan ku hormarna video spotlight. Video spotlight-ka wuxuu leeyahay laba video aad soo dhigi kartid. Muuqaalka ugu horeeya aad soo dhigi kartid waa channel trailer, kaasoo ah muuqaalka ugu horeeya oo ka soo muuqanayo homepage-kaaga hadduu yahay qof aanan weli subscribe ku saarin. Midka kalena waxa waaye featured video. Kaasina wuxuu u soo muuqanayaa dadka subscribe-ka ku ah laakiin ku soo laabtay homepage-kaaga si ay u sii fiirsadaan. Labada video-ba waan saari doonaa marka. Waxaad taabanaysaa kan ugu horeeyo meesha ay ku qoran tahay aad. Markaad aad taabatid wuxuu ku soo bandhigayaa marka muuqaalada aad soo dhigtay YouTube-kaaga. Kadib mid ka mid ah ayaad ka dooranaysaa. Waxaan kaloo soo dhigaynaa muuqaalka kale oo xiga. Isla sidoo kale waxaad taabataa marka aad kadibna muuqaalka aad rabtid inuu meeshaas ka soo bandhigo dooro. Markaad intaas sameysid waxaad sameysaa marka publish. Haddii aadan publish dhihin waxba isma bedelayo, muuqaaladii homepage-kaaga sidiisa ayuu u muuqanayaa marka. Marka xasuusnaa mar walba inaad taabatid publish. Waxaan idin tusayaa marka qof aanan weli subscribe inoo saarin hadduu channelkeena soo booqdo sida u soo baxayso marka. Waad aragtiin hadda qofkan oo kale subscribe inooma saarno. Marka hadduu channelka soo galo waad aragtaan muuqaalka u soo bandhigma marka. Waa muuqaalka aan ugu talagalnay channel trailer-ka dadka ku imaada in oo tuso. Waxaan baroobeynaa marka qof kale oo subscribe inoo saaray kaasoo soo booqday channel homepage-keena. Waad aragtiin asagana waxaa u soo muuqday muuqaalka labaad oo aan soo posti gareynay. Marka haddii aan u sii gudubno marka qaybta xigta oo ah featured section,
marka si aan wax ugu soo darno featured sectionka waxaad taabanaysaa meesha ay ku qoran tahay add section. waxaad kusoo bandhigi kartaa marka inta shaashada kaaga muuqata. waxaa ka mid ah popular upload, single playlist, multiple playlist, featured channel iyo wax kaloo sii raacsan. marka intaba waa wada samayn kartaa. marka anaga waxaan sameynaynaa marka qaar ka mid ah. marka waxaan ku soo darnay popular uploadka, single playlistiga iyo multiple playlist. marka hadda waxaan sameynaynaa publish. waxaan aadaynaa homepage-keena sida u muuqdo waan arkaynaa. marka kahor intaan aadin homepage-ka, haddii aad rabtid in aad qaabkan aan u kala hormariye aadan u kala hormarinin, waxaad sameynaysaa calaamadani oo equalka camal ah ayaad taabanaysaa adigoo riixayo left click, kadib adigoo haayo ayaad jiidaysaa, hoos ayaad u celinaysaa. marka sidaad rabtid ayaad u kala hormarsan kartaa. markaas waad aragtiin marka channelka marka hadda sidoo u muuqdo playlistiyadii ayaa soo galay iyo single playlistigi iyo popular videogi wixii dhan waxay ka soo muuqdeen marka homepage-ka. meeshan kalena waad aragtaan sida aan u kala hormarsiiyey ayay u kala hormareen, oo popularka waxaa ka koreeyo single playlistiga. waxaan kaloo rabaa inaan kusoo daro marka featured channel. aniga marka hadda waxaan ku darayaa marka qaar ka mid ah channelada Soomaalida kuwaasoo dadka badankooda ay yaqaaniin. marka channel featuredka waxaad ka bedeli kartaa magaca la magacaatid u bixi. hadda aniga magac ayaan u bixiyey. asagana wuxuu leeyahay isla sidii oo kale channelada sida aad u baahan tahay ama sida aad jeclaysatid ayaad u soo kala hormarsiin kartaa. channelka aad rabin ayaa muuska kor saaraysaa, kadib waxaa ku soo baxay marka delete icon, halkaas ayaad taabanaysaa. marka kadib publish ayaan taabanayaa, hoos ayuu jiraa. marka hoos ayaan ka soo qaadayaa oo kor ayaan soo saarayaa. mar kale ayaan waxaan ku celinayaa publish. hadda marka waxaan ku laabanaynaa homepage-keena. inta aan marka homepage-ka aadin, haddii aad u baahan tahay marka waxyaabaha aad soo dhigtay inaad wax ka bedeshid, sida inaad edit gareysid oo kale, inaad playlistiga gudihiisa aad tagtid, ama inaad deleedidba sectionkaas oo idil, waxaad taabanaysaa sectionkii aad kor tagaysaa. waxaa kuu soo baxaya marka 3 dhibcood. 3daas dhibac ayaa taabanaysaa, kadibna waxaa kuu soo muuqanaya marka inta go'aan oo aad ka gaari kartid marka sectionkaas. hadday noqon lahayd editingka, hadday noqon lahayd inaad playlistiga oo ku jiro aad soo booqatid, hadday noqon lahayd inaad deleedid, intaba optionska adaa leh. marka meeshaad rabtid ayaad la mari kartaa. waxaan tagaynaa marka homepage-ka. waad aragtaan marka hadda wuxuu ku soo daray channelladii. waxaad kaloo aragtaan wuxuu leeyahay title-kii aan u soo bixiyey, sidaas ayaad ugu soo darsan kartaa. marka hadda waxaan u gudbaynaa marka qaybtan layout-ka. waxay aad u khusuusay sida ay u soo muuqan lahaayeen muuqaalada aad soo dhigtay iyo sida ay dadka ugu kala heli lahaayeen homepage-ka. branding-kana wuxuu khuseeyaa sawirada homepage-ka ku yaala siday u soo muuqan lahaayeen. dhammaan sawirada ku yaala YouTube-ka siday u soo muuqan lahaayeen. profile picture-ka haddaan u baahanahay waan iska bedeli karaa. haddaan rabo inaan iska remove gareyno, waxaan taabanayaa qaybta remove-ka. banner image-ka waxaad kaloo ka bedeli kartaa video watermark kaasoo ka soo muuqdo markii ay dadka daawanayaan YouTube-kaaga ama video aad soo dhigtay ay daawanayaan, wuxuu ka soo muuqdaa qofkii taabta wuxuu awood u yeelan karaa marka inuu subscribe ku saaro channel-kaaga. marka video watermark qaabab badan ayaa loo soo bandhigaa ilaa 3 camal ah. kasoo marka ugu dambeysa ee muuqaalka inaad u sameysid customize oo time aad adiga rabtid lagu soo dhigo ama lagu soo muujiyo ama dhammaan videoga inuu ka soo muuqdo. hadda waxaan kale u gudbaynaa basic info. wuxuu ku saabsan yahay marka badi wuxuu khuseeyaa about-ka channelka, sida name-ka oo kale, sida inaad description-ka aad soo gelisid iyo inaad linkiyada aad rabtid aad soo bandhigatid. marka linkiyadani halkan kaaga muuqdo waxay ka soo muuqan karaan ayagana homepage. haddii aad u baahan tahay marka linki inaad soo dhigatid, waxaad taabanaysaa add link. haddii aadan u baahnayn waxaad taabanaysaa iconka delete-ka ah ayaa meeshan kaaga muuqdo. marka linkiyada lagu ogol yahay inay kaaga soo muuqdaan homepage-kaaga ama bannerka geeskiisa waxay ugu badnaan gaari karaan ilaa 5. haddii aan ku laabano marka homepage-kayga oo kale, waad aragtaan 3 linki ayaa ii soo muuqdo. waxaan geliyay oo kaliya 3 linki. hadda marka waxaan ku laabanayaa YouTube Studio-ga. marka waxaan leeyahay 2 linki igaaga dhig. iska hubi marka publish dheh. kadib waxaan ku laabanayaa homepage-ka, refresh ayaan leeyahay. waad aragtaan marka wuxuu inoo soo bandhigay marka 2 linki oo kaliya.
waxaa ugu badan horta meesha lagu soo bandhigo waa 5 adiga 5 ilaa inta ka hooseysa ayaad leedahay marka inaad wax ka bedeshid qaabka rabtid in lagu soo bandhigo qaybta hoosena marka waxaad soo gelin kartaa Gmail-kaaga si ay dadka kaaga la soo xiriiraan kuma hasantahay daawashadaada fadlan hadaad muuqaalka ka heshay si share garee oo asxaabtaada kala wadaag. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.